maalin wanaagsan waa idin salaamaya dadka meeshaan iga daawanayo. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinka maanta adduunka ka jiro oo coronavirus ibka uu ku haysto. Waxaan jeclahay inaan meeshaan ka sheego waxa uu coronavirus yahay, sida uu dadka ugu dhaco, sida la iskaga celiyo intaba. Waxaan rabaa inaan meeshaan ka soo gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. marka koowaad waxaan rabaa inaan idiin sheego cudurkan ma cudurkii koowaad oo adduunka ku yimid oo saan camal ah ma ahan. oo cudurkan adduunka horey buu soo qalqaliyay asoo magac kala duwan oo wato. hergeb waaye magac kala duwan asoo wato ayuu adduunka soo maray. 1918 waxaa jiray wax la yiraahdo Spanish flu, wuxuuna dilay wax ka badan 50 milyan ayuu dilay. waxaa jiray 1958 Asian flu, wuxuu dilay in badan oo intaas camal ayuu dilay. waxaa adduunka soo martay flu oo shimbiraha la yiraahdo bear flu la yiraahdo ayaa soo maray, wax badan ayuu dilay. doofaarka flugiisa waa soo mariyay, wax badan asigana ayuu dilay. marka waxaan waa wax soo socday, laakiin maanta adduunyada aad joogno 2020 oo annagaba qarnigan aan ku noolnahay, horena u joogno waqtigaas, waxaa la kowsanay wax la yiraahdo coronavirus. waana wax nagu cusub, balse laakiin adduunkii hore aanu ku cusbeen. coronavirus waxaa ka soo bilaabmay dalka China, waa dilaa, waa hergeb dilaa ah. ay Soomaalida inta badan ula baxday hergeb edebtaran ula baxeen, waa dilaa ah. hergebkan oo saameeyay adduunka wadamo badan, in ka badan 150 wadan. dad aad iyo aad u tiro badan ayuu saameeyay. dad qaarkoodna waxaa u malaynaya ku naf waayeen, dadna ilaa haddase qolyaashii iyo guryahoodii iyo isbitaalada meel alle meesha tegi karaan ayay la joogaan. wadanka aad joogo oo Ingiriiska ahna sidaasoo kale waaye. dad badan aa guryahooda iska joogo soo bixin cabsi daraadood, dadna isbitaalada bay xanuunka la jiifaan. intaba waa iskugu jiraan. coronavirus waa cudur halis ah. sida lagu qaadi karana waxay tahay in adiga aad shakhsiyan qofka qabo ag istaagan tahay, ilaa xoogaa yar ag istaagan tahay. hadduu kugu neefsado ama kugu qufaco, wixii ka soo baxa jeermiskaas ka soo baxayo waa ka qaadi kartaa si sahlan, adigana si sahlan buu oo kugu acaya. sidoo kale haddii qofkaas salaantiin ama dee isqabsataan, ama Soomaalida aqankeeda hab bay isa siiyaan, habkaasi la isa siinaya intaba waxaan u malaynayaa asigana sidoo kale coronaviruskaas waa kugu acaya. mana cudur sahlana ma ahan. sida la iskaga celiyo waxa uu u malaynayaa waa in intaasba aad iska joojisaa, in salaanta aad salaamaysid dadka aad joojisaa, in xagga aad siinaysid ama dee hab aad siinaysid aad joojisaa, in qofkii aad meelaha loogu badan yahay dadka oo shakhsiyan Soomaalida waa dad aad u bulsho jecel oo meel walba inay isku imaadaan jecel, in meelahaas ka taxadirtaa aana aadin, aana dadkaas aana tegin. sidaas gacmahaadana mar walbo jeermiska wato in aad iska dhaqdaa ayaa iskaga ilaalin kartaa. intaba waa la iskaga xadidi karaa, waa wax la xadidi karo, adiga hataa is ilaalisid waa la xadidi karaa. waana cudur sahlan oo socdo oo ku imaan karo meel alla meesha joogto. wadamo badanna wuu tagaa. sidaa maqlaynan hadda Soomaaliya waxaa laga helay hal qof, Kenya waa laga helay, Ethiopia waa laga helay, Africa meelo badan baa laga helay. waan iska naxdin sababtoo wadamadaas si sahal wadamadii Yurubyaankii ama wadamadii hormaray ayaa la tacaali lahaa baaxada uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay iyo caafimaadkood isbitaalada ay leeyihiin iyo iban lacagta ay leeyihiin, waa la tacaali laayeen. maxaa u malaynaysaa haddii Africa wadamadaas oo aad u galo, qaas ahaan Soomaaliya hadduu galo oo dhibaato badan 30 sano kusoo jirtay, isbitaallo badan oo dowladda ayna lahayn, dhibaatooyin kale ay iska jiraan. marka waa adagtaasi loola tacaalo.
dowladda Soomaaliya waxay ula tacaali kartaa ugu fiican in dadkan loo sheego wacyigelin waxa ugu fiican oo loogu tacaala ama bahalkan la iska ilaaliyaa waa wacyigelin. Waddankan hadda joogno daawo ma leh, laakiin sida keliya oo annaka ugu badbaadno oo dadku ugu badbaadaan wacyigelin badan bay bixiso. dadkii baa loo sheegay wuxuu yahay si la iska ilaaliya loo sheegay. sidaas daraaddeed aan ku noolnahay oo iskaga ilaalinaa oo qof walba iskaga ilaalisaa maahane wax daawo leh ma ahan. waxaana ku fahmaysaa cudurkan hadduu ku hayo ee tahay in madax xanuun iyo jir xanuun badan uu leeyahay, qufac badan inuu leeyahay, neefta inay kugu cashoomayso oo neefsan karin. haddii aad intaas isku aragtid walaal waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha isdilinaha. qofkii halaas isku arko gurigiisa iska joogo ilaa ka baanna cudurka cudur daawo lama leh, waana laga baantaa. dad badan ayaa ka soo kacay oo ma ahan wax qof walba ku imanaysa ma ahan, waa laga soo kacaa. marka walaalayaal gurigeena jooga. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa maqlayay in ay ereborada check up samaynayso oo dadkii ka ilaalinayso waxay cudurkan qabaan ee ka ilaalinayso. aniga waxa kula talin lahay dadaal badan bay sameeyeen.